dalka Liibiya COVID-19 wuu joojin kari waayay mid ka mid ah colaadaha ugu dheer Afrika ee socday 10 sano ee la soo dhaafay waxayna u muuqataa in khilaafkii uu sii siyaadayba iyadoo hogaamiyaasha dunidu ay ku mashquulsan yihiin masiibooyinka caafimaad ee ku habsaday General Khalifa Haftar ayaa isagu doonaya inuu isku ballaariyo dalkaasi oo quwadiisana u muujiyo dawladda qaramada midoobay aqoonsan tahay waqtigan xaadirka ah 64 kiis ayaa laga xaqiijiyay Liibiya oo coronavirus ah iyadoo markii horeba hanaanka caafimaadka dalkaasi dagaalku uu la dagay Aisha Afrax ayaa soo jeedinaysa iyadoo dunidu ay la daalaadhacayso la dagaalanka COVID-19 Liibiya jiideeda hore wali waxa ka soconaya dagaal sokeeye dawladda Tripoli dagaal socday sanad oo ay kula jireen General Khalifa Haftar iyo xoogaga isaga taabacsan ayaa uga soo horeeyay COVID-19 saddex toddobaad ka hor ra'iisul wasaare Faiz al-Sarraj wuxuu ballan ku qaaday inaanu ka tanaasuli doonin madax bannaanidooda iyo dhulkoodaba dabayaaqadii bishii March kadib marka uu lumiyay badi dhulka ku hareeraysan caasimadda oo ay ciidankiisu qabsadeen General Haftar wuxuu kala soo xiriiray dadweynaha Liibiya warbaahin isaga u gaara nu'linu istijabata alqiyadati al'aamma wuxuu sheegay inuu aqbalay waxa uu ku andacooday inay tahay amar ka soo baxay rabitaanka dadka wuxuu kaloo tilmaamay inuusan mar dambe diyaar u ahayn ka qaybgalka wadahadallada siyaasadeed ee dhexdhexaadinta ee qaramada midoobay bil kadib markii laga helay COVID-19 dalka Liibiya khilaafku sii siyaaday iyadoo saameyntiisuna ay siyaaday khasaaraha ka soo gaaray rayidka iyo dadka barakacaya ayaa sii badanaya taniya bishii Janaayo xanibaadaha ee dekada shidaalka saareen ciidamada Khalifa Haftar ayaa sababay dalkan inuu seego dakhli gaaraya balaayiin ilhaan waxay tiri fayraskan wuxuu u fududeeyay kuwa quwadda doonaya inay helaan inta uu adduunku ku mashquulsan yahay safmarka xanuunkan wado taasoo sababtay inay sii badato dhibaatada iyo dhibanayaasha dalka Liibiya sidoo kale khilaafka iyo fayraska corona waxaa ku dhex jira dad qaxooti iyo soo galooti isugu jiro aan haysan sharci ay ku helaan gargaar caafimaad nidaamka caafimaadka Liibiya ayaa 10 sanaba ahaa mid liita Libya already has a very overstretched sidiisaba nidaamka caafimaad ee Liibiya wuxuu ahaa mid iska liita imikana burburba qarka u saaran yahay waxa taa si dheer ilaa 15 isbitaal ayay saameeyeen dagaaladani oo qaarkood lagu talagalay inay caawiyaan bukaanada safmarka dadka Liibiya waxaan ugu baaqaynaa inay u midoobaan la dagaalanka fayraska iyo safmarka come together to combat the pandemic balse dhinacyada ku hardamaya dalkan muhiimadooda koowaad waa inay xukunka gacanta ku dhigaan